السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام بشهد الصوماليات أدبان الدين سلامي مقعي وهذا محمد إيدان كما قعدير هذا لمانها عندها أهنا أفايانك إسكحرها يولي بدقالة سو أروريها أروركها بلها أرقنا فذكاه تف بلاين جيراليس ماتي تاريخ دتها إلا بكون يوكوبي لباتن بشي أفراد لحديدي ماليني مثلا سأه waxaan doonayaa halkan aan idinku soo gudbiyo isla markaana aan idinku la wadaago barnaamijkii la magac baxay naafakaab aan daa furnay sabtidii bishii 3 bishii 4 2021 taasoo ku daa furnay gobolka Togdheer magaalada Burco ee gobolka Togdheer halkaas oo wakiil nooga ahaa Sheekh Farxaan Ismaaciil Jibriil oo ah wiil aragga naafaka ah barnaamijkan ayaa waxa fulinayay ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Taf Blind Girls isla markaana waxa maalgelisay mu'asasada khayriga ah ee Al-Nur Charity ee fadhigeedu yahay dalka Qatar waxaan ku daafurnay 20 qoys oo loo qaybinayay raashin kuwaasoo guud ahaanba iskugu jira naafada qaybaheeda kala duwan barnaamijkaas oo socday 3 cisho u dambeysay oo bilaabmayna 3 bishii 4 2021 ayaa wuxuu shalay tole si rasmi ah ugu soo gabagaboobay magaalada Burco ee gobolka Togdheer halkaas oo lagu guddoonsiiyay 20 qoys raashinkood waxaan doonaynaa halkan idinku la wadaago in wajigii koowaad ee barnaamijka naafakaab uu ku soo gabagaboobay gobolka Burco isla markaana lagu soo guddoonsiiyay 20 qoys raashinkood insha Allah biidmilaahi kariim waxaan ugu xigi doonaa gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa haddii Rabbi raali ka noqdo anagoo ku rajo weyn insha Allah in weekan gudihiisa haddii Rabbi raali ka noqdo aanu bilowno wajigii labaad ee barnaamijka naafakaab barnaamijkan si toos ah waxa u maalgelinaysa san horeba u sheegay mu'asasada khayriga Al-Nur Charity mu'asasadaasoo aan ahayn markii koowaad ay na garab gasho ama se ay dadka maaragtay naafada ah ee anagu metelno wax muxuu ahaye noola qabato oo nala garab gasha halkan waxaan hambaliyo iyo salaan iyo duco uga dirayaa mu'asasada khayriga Al-Nur Charity mas'uulkeeda sare Habay Farxaaji Maxamed Maxamuud oo ah xaqiiqiyan qof aad iyo aad u wanaagsan isla markaana u naxariis badan dadkeedana u arxanta waxaan leeyahay Ilaahay khayr badan ha ku siiyo insha Allah waxaan rajayn doonaa in dad badan ay ku dayan doonaan haddii Rabbi raali ka noqdo sidoo kale halka waxaa uga mahadnaqayaa walaalkii wakiilka noo ahaa Sheekh Farxaan Ismaaciil Jibriil oo juhdi badan ku bixiyay dadka diiwaangelintoodii iyo raashin qaybintoodiiba isagana waxaan leeyahay iyo waliba walaashay Hibaa oo muxuu ahaa iyaduna la kaalmeynaysa isla markaana barnaamijka la waday waxaan idin leeyahay jasaakumullahu khayran wa khayran jasaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro ugu dambeyntii halka waxaan doonayaa inaan idinku la yara wadaago muxuu ahaa hees yar ama saan idhaahday tix yar oo aan u sameynay Habay Farxaaji Maxamed Maxamuud oo ah mas'uulka mu'asasada khayriga Al-Nur Charity taasoo ku kasbatay wanaageeda iyo naxariista ay u leedahay dadka naafada ah ama sadan yartaba haddii aan bilaabo heestu sida tan bay u dhacaysaa deganay ifraax hooyada bacsanay darajiyo wanaag baa dushaada yaal deganay ifraax hooyada bacsanay darajiyo wanaag baa dushaada yaal danyartiyo agoonta daryeeshayo dugsiya toho lagu tiirsada danyartiyo agoonta dabiibtayo dugsiya toho lagu tiirsada dabaqyada jannada darihi firdaws kuwa lagu
daare dhex durdurta noqo durdurada jannada adaba lataa deeq badanow ilaah dembigaaga dhaaf waanadii riisoo dadkanku jecle deganay ifraax dainku gargaar maasha allah tabaaraka allah ilaah waxaan ka baraya inuu ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro khayraadkay sameynayso guntiiyo gebagabadii waxaa halkan baaq uga dirayaa dhammaan ummadda muxsiniinta iyo inta khayrka jecel oo aan leeyahay ku dayda ifraax xaaji maxamed maxamuud oo ah mas-uulka mu'asasada khayriga alnuur charity ahna qof ku dayasho mudan isla markaana ay muxuu ahay mudan tahay in lagu daydo hawshan aan wadnay khayrigana waxaan jeclayn nagala qayb qaadataan waa nasiib daro annagoo dadkayagii u heelan annagiyo la mid ah in xataa aanu weyn